bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka tixraaca toddobaadka hadahan oo kale ayaa galmudug t v ka daawataan qodobada daawa doontaan toddobaadkan barnaamijka idinkugu soo gudbin doona waxaa kamid noqon doona guddiga doorashooyinka iyo dhisida maamulka galmudug ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug iyadoona halkaasi lagu soo dhaweeyey. qodobada kale waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ayaa khudbad ka jeediyay toddobaadkan gudihiisa shirka iskaashiga Afrika iyo Ruushka oo ka dhacay magaalada Sochi ee dalkaasi Ruushka. waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa hadduu baraali ka ahaado dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ka hadashay toddobaadkan gudihiisa fatahaada roobka dayrta ay ka sameeyeen qaar ka mid ah gobolada dalka. toddobaadkan gudihiisa Muqdisho waxaa soo gaaray wafdi ballaaran oo ka socda qaramada midoobay iyo urur goboleedka IGAD. waxaan idiin soo gudbin doonaa wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda Soomaaliya oo ka hadashay ujeedka socdaalka wafdigaasi. qodobada kale daawo doontaan hadduu eeba yiraahdo waxaa ka mid noqon doona guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ayaa waxa ay su'aalo weydiiyeen wasiirka amniga dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha booliiska ciidanka Soomaaliya kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawo doontaan hadduu eeba qadaro tixraacina u diyaar garooba mar kale Maxamed Cabduqaadir ayaa aalaba barnaamijka halkan kaga soo jeediya farsamadii kaamirada wada jireen waa Cabdicasiid Sheele u diyaar garooba mar kale tixraacina. daawadayaal aan ku bilowna sida horraca barnaamijka aad ku daawateen guddiga maamul dhisida iyo farsamada galmudug oo toddobaadkan gudihiisa gaaray magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu soo dhaweeyay halkaasi. taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada ayaa waxa uu ka hadlay ammaanka magaalada iyo sida ciidamadu ay doorkooda amniga u sugayaan. waxaan rabaa inaan la wadaagno bulshada reer galmudug. waxaan joognaa caasimadda galmudug Dhuusamareeb. waxaan soo dhaweynay saakay guddiga doorashooyinka ee galmudug. xaaladda boqolkiiba boqol amnigu wuu fiican yahay. waxaan rabnaa bulshada inay la shaqeyso laamaha amniga si loo helo horumar amni. horumarka ciidamada amnigu ay sameeyaan wuu badan yahay. deegaanada muxuu ahaa caasimadda hoos yimaada ayaa amniga ciidamada amniga ka shaqeynayaan. caasimadda gudaheeda ka shaqeynayaan. baaritaano ayay wadaan runtii ay kula dagaalamayaan muqaadaraadiyada iyo waxyaabaha amniga liita ku ah. marka waxaan dhihi karnaa heerka amnigu boqolkiiba boqol waa aad u fiican yahay. ilaahay baana hadda iskale. dadka reer galmudugna waxaan leenahay sidaas oo aad ugu sii dhawaataan waaye. marka qof walba muwaadin ah waxaa waajib ka saaran amniga. wuxuu xaq u leeyahay inuu amnigii sugto wixii uu arkana uu noo soo sheego si markaas amniga iyo bulshadu ay isku mid wax uga qabtaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan gudihiisa ka qayb galay shirka madasha iskaashiga Afrika iyo Ruushka oo ka dhacay dalkaasi Ruushka iyadoona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya uu khudbad ka jeediyay shirkaasi. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbad ka jeediyay shirka madaxeedka Ruushka iyo Afrika oo soo bandhigay fursadaha iskaashi iyo maalgashiga ee haatan horyaala labada dhinac. madaxweynaha ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda iskaashiga Afrika iyo Ruushka oo uu sheegay inuu yahay mid labada dhinac faa'iido u leh isagoona xusay tiirarka ay tahay in lagu saleeyo xiriir kasta oo iskaashi oo qaaradda Afrika ay la yeelanayso dalalka caalamka. shirweynahani waa fursad dhab ah oo loogu eegi karo
laguna horumarin karo cilaaqaadka taariikhiga ah ee Afrika ay la leedahay Ruushka iyadoo la marayo iskaashi iyo wada shaqayn si loo gaaro horumar barwaaqo loo dhayahay ayuu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa dul istaagay xiriirka taariikhiga ah ee Soomaaliya iyo Ruushka, mashaariicda iskaashi iyo midda maalgashi ee laba geesoodka ahaa iyo sida ay uga go'an tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya in dib ay u soo noolayso xiriirka kala dhexeeya dalkaasi Ruushka. Soomaaliya waxa ay doonaysaa in ay xoojiso xiriirka laba geesoodka ah ee ay la leedahay Ruushka iyo in ay la shaqeyso midowga Afrika si loo hubiyo in guul laga soo hooyay xiriirka labada dhinac ay ku wada gaarayaan magaalada Soje ayuu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay madaxda ka qayb gashay madashan iyo maalgashadayaasha caalamiga ah ee goobjooga ahaa in ay soo booqdaan Soomaaliya si ay uga arkaan horumarka ay ku tillaabsatay shacabka iyo dowladda. Waxa ayna sheegay in taasi ay qiimeynayaan fursadna maalgashi ay siinayaan haddii uu Alle ogolaado. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay dhiggiisa dalka Ruushka mudane Vladimir Putin, xukuumadda iyo guud ahaan shacabka dalkaasi soo dhaweynta diiran iyo martiqalinta sare ee ay u qaabileen isaga iyo wafdigiisii ee uu ku dhawaaqay in Soomaaliya ay soo dhaweynayso qodobada wax ku oolka ah ee ka soo baxay madasha iskaashiga Ruushka iyo Afrika. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan gudihiisa ka hadashay fatahaadda uu sameeyay roobabka dayrta ee ka da'ay qaar ka mid ah gobollada dalka. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Dowladda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maareeye ayaa arrinkaasi warbaahinta u sharxay qorshaha dowladda ay u dejisay. bismillaahi raxmaani raxiim. arrinta aan maanta shirka jaraa'id aan ka samaynayo waxay ku saabsan tahay roobabka dayrta ee dalka ka da'aya. ugu horeyn waxaanu ilaahay uga mahadnaqaynaa nimcada iyo naxariista uu ummadda Soomaaliyeed siiyey. roobkan dayrta ee hadda da'aya iyo roobkii guga ee ka horreeyey oo dalka isaguna intiisa badan si fiican uga da'ay. dayrtuna hadda ay si fiican intaanu ognahay gobollada dalka oo dhan uga da'day, dadkuna ka baxeen iyo xooluhu dhibaatadii abaaraha iyo biyo la-aanta. marka alxamdulilah ilaahay mahadiis weeye. dhinaca kale haddii roobabkaasi sii socdaan waxaa jira meelo badan oo ay jirto cabsi fatahaad ay jirto, ama meelaha qaarkood ay bilaabantay in ay fataho webigu oo guryo iyo xaafado dadegan yahay ay biyuhu galaan, oo ay kamid tahay meelaha ay ilaa hadda fatahaadu guryaha dadku ku nool yahay gaadhay magaalada Beledweyn. sidoo kalena waxay cabsi ka jirtaa meelo kamid a Jowhar iyo sidoo kale Awdiinle iyo Baardheere iyo meelo badan oo dalka haddii roobabku hadba intii ay da'aan ama ay ka da'aan dalkeena ama ay ka da'aan meelaha webiyadu ka yimaadaan ee dalka Ethiopia ayay ku xidhan tahay. laakiin waxaa jirtaa digtooni in la galo oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee degan soonayaasha webiga areerihiisa iyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ee federaalka ah iyo dowladaha iyo hay-adaha aynu walaalaha nahay na caawiyo intuba inay ogaadaan inay jirto cabsi fatahaad. marka si loo sii diyaar garoobo maadaama ay had iyo jeer dhici jirtay in marka dhibku dhaco ee dadku dhibaatadu gaadho muddo kadib loo gurmado iyagoo already dhibkii uu gaadhay. maanta shirka jaraa'id waxaanu u qabanaynaa wasaaradda warfaafin ahaan inaanu ku wacyigelino shacabka Soomaaliyeed ee webiyada agaarkiisa degan, maamul goboleedyada dalka ka jira iyo madaxda, iyo sidoo kale dowladda federaalkana anigu xubinta ka ahay oo diyaar ah, iyo beesha caalamka inay sameeyaan assessment ama daraasad horudhaca oo ay u diyaar garoobaan inay imaan karto fatahaad waxyeelaysa dadka iyo hantidooda. waxaanu ka codsanaynaa digtoonida in la qaato oo dadka Soomaaliyeed iska moosaan iyo maamul goboleedyadu meelaha ay fatahaadu ka dhici karto. sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalka oo aan ogahay inay diyaar garowna ugu jirto inay dadka wixii karaankeeda ku caawiso, inay abaabusho
sidii gargaar meeshii dhib ka dhaco loo gaadhsiin lahaa. waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha United Nationka iyo hay-adaha kale khayriyaadka inay iyaguna caawiya dadka Soomaaliyeed inay iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii aad ogtihiin in dhammaan dhibaatooyinkii ama abaaro lahaa ama fatahaad lahaa ee dalka ka dhacay gacanta ugu horeysa waxa geysta shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed, waana sidaas inay shacabka Soomaaliyeed isu gurmadaan. sidaas awgeed iyagana waxaanu ka codsanaynaa intaas oo dhan dowladda anigu wasiirka warfaafinta u ahay oo sidaan sheegay diyaar ah iyo maamul goboleedyada iyo hay-adaha gargaarka iyo ganacsatada Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed oo haysta inay u diyaar garoobaan in haddii ay roobabkaasi sii da-aan oo fatahaad dhacdo in aynu si degdeg ah oo waxtar leh ugu gurmano meelaha ay fatahaadu ka dhacdo hadday ka badato bulshada meesha ku nool iyo maamulka meesha ka jira. wafdi ka socda qaramada midoobay iyo urur goboleedka IGAD ayaa toddobaadkan gudihiisa soo gaaray magaalada Muqdisho iyagoona kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre. kulanka kadib wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa waxyaabihii ay ka wada hadleen labada dhinac warbaahinta la wadaagtay. waa mahadsantahay. maanta waxaa la soo gaaray wafdi ay hogaaminayso ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Marwo Aamine Maxamed oo la socotay ergeyga gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha haweenka, nabadda iyo amniga Madam Bineta Diop. labadooda ayaa waxay ku yimideen mission ay ugu yeereen solidarity mission oo ay uga hadlayaan arrimaha haweenka, nabadda iyo maaragtay security-ga iyo amniga ay ku leeyihiin. waxay yimideen waxay la kulmeen ra'iisul wasaaraha ayagoo kala hadlay ra'iisul wasaaruhu uu kala hadlay arrimaha Soomaaliya, arrimaha marayaan dhinacyo badan, dhinaca security-ga, dib u habeynta security-ga, sidoo kale guulihii laga gaaray arrimaha deen cafiska iyo waxyaabaha dhaqaalaha, kobcinta dhaqaalaha. wuxuu kaloo aan kala hadalnay arrimaha muhiimadeedu ay ahayd doorka ay haweenku ka qaataan nabadda, amniga iyo siyaasadda. kadibna waxaan la kulanay ay la kulmeen golaha wasiirado ka mid ah sida midka constitutionka ama dib u eegista dastuurka iyo wasiirka amniga. waxyaabaha aan kala hadlan annaga horta ka wasaarad ahaan imaatinkooda aad may muhiim noogu ahayd, sababtoo ah waxa ay taabanayaan arrimaha oo wasaaraddu ay ka shaqayso. waxaan ka hadalnay axdigii haweenka Soomaaliyeed ee aan soo saarnay kadib shirkii la isugu yimid bisha Maarso oo ay ka mid yihiin waxyaabihii ka soo baxay oo ay haweenka Soomaaliyeed ay ku weydiisanayaan, ay codsanayaan arrimo badan sida ka qaybgalka siyaasadda, arrimaha dib u eegista dastuurka iyo hamiyadda ay ku leeyihiin waxyaabaha ay rabaan inay ka qabtaan. shir aad u wanaagsan buu ahay kasoo wadan ahaana runtii muhiimad weyn ayay noo tahay inay maanta na soo booqdaan dadka ugu sarreeya Midowga Afrika iyo ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay. waxay kaloo naga ballan qaadeen in ay ka haween ahaan ayna garab taagan yihiin ayagoo isticmaalaya xafiisyadooda sidii horumar loogu gaarsiin lahaa haweenka dhinaca doorashooyinka. ka wasaarad ahaan waxaan kala hadalnay muhiimadda aan ka leenahay iyo howlaha aan ka wadno iyo aan ka suubin doono sidii haweenka Soomaaliyeed ka qaybgalka siyaasadoodu ilaa hadda meesha ay joogaan meel ka sarreysa inay tagaan. sidoo kale sidii haweenka iyo dhalinyarada gabdhaha ah iyo wiilashaba sidii maaragtay jawiga wanaagsan ee socda wadanka ka socda ay uga noqon lahaayeen xubno aad u firfircoon. waxaan ka hadalnay constitutionka inaan rabno in koota la geliyo iyo inaan ka wada shaqayn doono. waxayna noo ballan qaadeen inay siday Soomaaliya u garab taagnaayeen haddana arrimaha haweenka inay si wanaagsan ay noogala qaybgeli doonaan. toddobaadkan gudihiisa Muqdisho waxaa ka furmay shirka agaasimayaasha guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. hadal jeedinta kadib warbaahinta waxaa la hadlay xogayaha joogtada ah xafiiska ra'iisul wasaaraha ee Soomaaliya. maalmahan maxaan ka wada hadli doonaa, maxaan kala baran doonaa, ujeedada aynu haddii Ilaahay yiraahdo
gudan doono maalmaha aynu isla joogno maxay yihiin. waa sida uu sheekh cali u sharxee lafdhabartii dowladnimadu haddii ay ku soo ururto agaasimayaasha iyo xoghayayaasha, waxaan u baahannahay inaan mas-uuliyaddeena si mug weyn la u qaadan. waxaa marka isugu nimid in aynu isla eegno, haddii ilaahay yidhaahdo isla qiimeyno shaqada aynu dalka u hayno, shaqada ay dowladdu hayso, meesha ay hadda marayso, sida aynu u qorsheynay sanadkan 2019 wasaarad walba iyo hay-ad walba halbeegyadii kaga soo aaday tubaha qaranka ee tubaha maamulkeeda, qorshihii iyada u yaalay meesha ay marinayso, inaan isla fahamno, si fiican isula celcelinno, wax fara badanna kala baranno. qorshaha guud ee aan higsanayno ee aragtida dheer in aan haddii ilaahay yidhaahdo isla falanqeyno, si fiican isula fahamno. nidaamka ay hadda dowladdu ku shaqeysa ee casri kormeerka iyo dabagalka ama waxa la yidhaahdo performance delivery management system inaan wax iskala aragno, deedna aynu wax fara badan iska weydiino innaga iyo capacitygeena waxa la yidhaahdo human capitalka ama shaqaalaha dowladda, systemka uu ku shaqaalaysan yahay, systemka uu u shaqeeyo iyo sida mustaqbalka inuu noqdo ay tahay. waxaan wax iska weydiin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo adeega bulshada aynu u gudbino iyo midka inaynu u gudbino laynaga rabay, hadduu dhan caafimaad noqdo, hadduu dhan waxbarasho noqdo, hadduu dhanka biyaha noqdo, siday khidmadii dadku muxuu ahaa inoo igmaday sida aynu u fulino. aragti dheer ma ka leenahay, aragti muxuu ahaa faahfaahsan ma isla waafaqsannahay, qaabkeynu u fulinaa adeegii bulshada loo qabanay. waxaan haddii ilaahay yidhaahdo maalmahan isla falanqeyn doonaa wax in badan dadku ay muxuu ahaa dowladda ka maqleen oo shaqo fara badani ay ku baxday. geedi socodka dayn cafiska ma fahamsannahay inagu waxa uu dalka iyo dadka usoo jiidaya haddii uu hirgalo, ilaa iyo hadda saameynta uu keenay dhanka maamul wanaagga, isla xisaabtanka, in intee la-eg ayay agaasimayaashu ka qayb qaadanayaan, lafdhabar u yihiin, fahamsan yihiin dhaqaalaha dalka u kobcaya iyo muxuu ahaa istaraatiijiyaadka lagu hagayo. waxaan u baahanahay haddii ilaha yidhaahdo inaynu wax fara badan iska weydiino oo aynu isla celcelino. ajenduhu wuu idin hor yaallaa, waxaase wax runtii lagu farxo sharaf inoo ah in aynu isla taaban doono dhinacyo fara badan oo kala duwan oo maamulka aynu dalka u hayno ka dhigi doona maamul aan dib u noqosho lahayn. waxaynu si balballaaran oo cadcad wax isaga weydiin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo la dagaalanka musuqa iyo qaabka si farsamaysan oo technical ah uu u hirgeli karo barnaamijta ay madaxda iyo dowladdu soo dhigto. dadkii hirgelin lahaa ee hogaamin lahaa ee ka dhigi lahaa wax ma garanaysaa aan dib u noqonin waa dadka maanta halkan isugu yimid iyo walaalaheenna dowlad goboleedyada ee inagu soo darman doonaa saa dambe haddii ilaahay yidhaahdo. marka kulankeennan wuxuu ka koobnaan doonaa haddii ilaahay yidhaahda 4 maalmood oo ay maalin jumca u dhaxayso. maanta oo maalinkii u horreeyay waxaan isugu yeedhnay agaasimayaasha guud iyo xogeyaashooda ee dowladda federaalka. ajandayaasha ay qaar sheegnay ayaan isla qaada dhigi doonaa.
marka aynu si fiican isugu tababarano maanta iyo berri haddii ilaahay yidhaahdo waxaan iyagana u samayn doonaa kulan u gaar ah agaasimayaasha maamul goboleedyada oo dooda inagu aynu galnay mid la mid ah laakiin u dhiganta heer maamul goboleed iyaguna isla geli doono marka waxaan kusoo gabagabaysan doonaa conference ama shir ka dhexeeya dhammaan agaasimayaasha dalka oo haddii ilaahay yidhaahdo inta aan hadda ku guulaysanay inay isu timaadaan runtii markaan tirinay agaasimayaasha waxaa noo soo baxay in tiradu ay aada u badan tahay oo ay 200 ku dhadhow yihiin in 200 hal mar aan isu keenno waxaa nagala fiicnaatay inaan 2 batch ka dhigno marka heer federaal iyo heer dowlad goboleedba waxaan casuunay dad 100 ruux ku dhadhow 100 ruux oo agaasimayaashii sida uu sheekhu u sheegay lafdhabarta dowladda u noqon lahaa in ay isla celciyaan ka wada hadlaan isla celceliyaan muxuu ahaa qaabkii ay dowladdu u hirgelin lahayd ujeedooyinka guud ee u degan dowladaha kale ee ama deriska ama caalamka ah aynu ula tartami lahayd aanay marnaba wixii tallaabooyinee la qaadaa dib looga noqdo ayaan haddii ilaahay yidhaahdo maalmahan isugu nimid oon ka wada hadli doono waxaa xusid mudan in dad khubara oo kala duwan ay nagala soo qaybgeli doonaan qaybaha kala duwan ee barnaamijkeena waxaan ku talagalnay haddii ilaahay yidhaahdo in soo jeedin iyo kadoodid keliya ayna noqonin ee aan ogolaano dad khubaro ah oo dakaatiro ah oo professorro oo meelo kala duwan ka imaanaya ama qaar wasiirra yihiin inay doodaha qaar inagala qayb qaataan saa daraaddeed baan dhanna idinku samaynay panel ama falanqayn miiskeed dhanka kalena idinku samaynay soo jeedinta presentationkeed waxaan marka u baahannahay haddii ilaahay yidhaahdo inaynu shirkan ama kulankan dhammaysano maalmahan soo socda isaga oo aynu isla jaan qaadnay si fiican isula fahanay qaabkii dalkan maamulkiisa iyo mashaariicdiisa iyo horumarintiisa haddii ilaahay yidhaahdo 10 sano ee soo socoto uu u socon lahaa oo aynu isku aragti ka nahay isku sina aan wax u wada fahmno hadday noqoto adeega bulsho iyo haddii ay noqoto siyaasadaha guud ee dalku uu ku soconayo hadday noqoto maamul wanaagga iyo hadday noqoto shaqaalaha iyo tayeyntooda iyo hadday noqoto adduunka iyo sida aynu ula dhaqmi karno ee kaalmada ayna siiyaan ay u noqon karto mid dowladdu ay maamusho imahaas baan haddii ilaahay yidhaahdo kusoo koobi lahaa qaabka uu u socon doono kulankeenu waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo seshanada qaar ka mida in uu inagala soo qaybgeli doono ra-iisul wasaaruhu haddii ilaahay yidhaahdo oo bal higsiga dowladda iyo waxaynu ka fahamsannahay iyo meesha ay u socoto iyo meesha ay u socon doonto aynu wakti u helno aan ra-iisul wasaaraha la qaadano isna uu aragtida dowladda iyo aragtidiisa inoo soo gudbiyo waxay la tahay wuxuu kulankan kaga duwan yahay kulamada kale la isugu yimaado waxaan falanqayn doonaa qaabkii aan ku xaqiijin lahayn in dowladnimada soomaaliya ka jirta aanay isu bedelin shakhsiyaal isbedbedela in wixii aynu qorshayno uu noqdo wax ruux yimid aanu dib u celin karin wax maamul cusub aanu muxuu ahaa bedeli karin wax ku salaysan danta dadka soomaaliyeed dowladnimadiisuna ay noqoto mid hana qaatay waxaad la socotaan dowlado fara badan oo adduunka ka mid a siyaasiyiinta iyo madaxdu ama doorasho ha gasho ama gaab kale ha galee inta ay muddo xilkooda ka maqnaadaan ama waqti dheer lagu mashquulsanaado yaa madaxweyne noqon iyo yaa ra-iisul wasaare noqon iyo yaa wasiir noqon haddana khidmadii dadka loo gudbinayay waxba inuun iska bedelin innagaa laynaga rabaa soomaaliya halka inaan gaadhsiino innaga waxaa laynaga rabaa inaan system abuurno ama nidaam u khidmaynaya dadweynaha oo aan saameyn weyn ku yeelanin hanaanka had iyo jeer ay siyaasaddu u socoto
maskaxda inaan tuujino nidaamka inaan abuurno dhinacyada kala duwan oo ka hirgeli karana aan inagu keenno haddii ilaahay yidhaahdo kulankeenana aanu muxuu ahaa ku gebagabayno shax iyo khad dhigan oo aragti dheer leh oo mustaqbalka haddii ilaahay yidhaahdo haddii uu axmed nuur wasiir noqdo iyo hadduu muxuu ahaa carabow ra-iisul wasaare noqdo aanu waxba ka bedeli karin wax u dhigan ummadda soomaaliyeed oo la ogyahay waddada ay qaadayso madaxdu ay ku dari karto hoggaan fiican hanuunin wanaagsan iyo horumarin ee aanay waddada ka leexin karin taa innagaa laynooga fadhiya haddii ilaahay yidhaahdo isagoo maskaxdaa furan aynu ku tala gashannahay aan bilaabano kulankeenna aan ku talagalno in mas-uuliyad weyn ayna saaran tahay aan isla celcelinno hanaanka uu hadda u socdo horumarka dalku iyo higsiga dheer sidii aynu qeyb weyn uga qaadan lahayn haddii ilaahay yidhaahdo soo dhowaada akhyaarta sida ay walaasheen hoodo sheegtay waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan inagu noqonno miithaalkii maamul wanaagga dalka waxaan ku noqon karnaa waktiga inaan kaga dhabayno taleefon inayna ku mashquulin shaqo ka munaasabsan ama ka muhiimsan middan hadda aynu isugu nimid agaasimahayaa dalka ma joogo haddii aynu inagu si qumman waan xoogaa markii aan curinay fikraddan ee nidhi aan isu nimaadno in agaasimayaasha la xidhiidhay wax laga naxay ahayd in agaasimayaasha oo dhan ay yidhaahdaan weligana isumaanaa iman weligana intaanu isu nimid oonu shirnay isma aanaa weydiinin agaasimayaal annagoo oho u dhan xaggeen dalka u wadi doona sharaf bay marka aniga ii tahay inaan kasoo qayb qaato kulanka ugu horreeyey ee agaasimayaasha isugu yimaadaan waa inuu noqdaa marka mid midho dhaba dhala haddii ilaahay idhaah sidaa uu midhaha ku dhalina waxay ku noqon kartaa inaynu ahmiyaddiisa siino marka fadlan maalmahan soo socda aan haddii ilaahay idhaahdo isu dulqaadanno waan ognahay madaxda ayna soo wici shacabka ayna soo wici howlo fara badan baa nin ruux walba u yaala shaqo fara ballaaran baa kasoo tagteen laakiin keliya waxaynu muxuu ahaa kaga dhabayn karnaa waxaan rabnaa inaan qabanno in aynu wakti siino aan dalka u fikirno fikirka aan qoraal u bedelno wax la taaban karo aynu haddii ilaahay idhaahda meel u dhigno dalka deedna ku shaqayno sidaas si aan u hirgelinno idamka ilaahay amniga wuu inoo sugan yahay noo dulqaata haddii soo gelidda iyo ma garanaysaa laysku yar cidhiidhiyey waa uun in uu seminaarkeenu si fiican u qabsoomo yaan uga jeednaa haddii ilaahay idhaahdo telefoonada waynu iska daminaynaa maanta iyo berri wixii cashireen kala baran karan kala baranaynaa haddii ilaahay idhaahdo maalinka ku xigtana walaaladeena maamul goboleedyada agaasimayaasha aynu wakti fiican isla qaadan doonaa maalinka sabtida ana haddii ilaahay idhaahdo ra-iisul wasaarihii innagaa wakti fiican isla qaadan doona deedna waxaynu kala anba bixi doonaa isaga oo ay inoo caddahay tubta iyo waddada ay soomaaliya qaadi doonto mustaqbalka soo socda haddii ilaahay idhaahdo sidaasuu inoogu furan yahay kulankeennu wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu hagaag daawadayaal guud ahaan waxaa intaa kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeena tixraaca toddobaadka maxamed cabduqaadir iyo alaba barnaamijka halkan kaga soo jeediya intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga sidaa iyo nabadgelyo.